nabigu calayhi salaatu wasalaam aayadahaas waxyiga markay kusoo degeen ayuu wuxuu u yimid Khadiija isagoo argagaxsan oo baqaya oo naxsan. markaasuu wuxuu ku yiri Khadiijoy idad. Khadiijo nabiga calayhi salaatu wasalaam mara ayay ku daday, kadibna waa ay wareysatay waxa dhacay. kadibna wuxuu uga sheekeeyay malagii ugu yimid godkii Gaaru Xiraa oo ku dul akhriyay aayadihii Quraanka ahaa. Khadiijo waxay ku tiri Ilaahay baan ku dhaartay, Ilaahay kuma ciqaabi doono ama wax dhib ah kuma geysanayo, sababtoo ah waxay tiri waxaad xiriirisaa qaraabada, waxaad soo dhawaysaa dadka martida ah, waxaad mar walba garab taagan tahay xaqa, waxaad wax siisaa qofka aan waxba haysan, waxaad tahay runlow oo run ayaad mar walba sheegtaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam Khadiija waa ay soo kaxaysay, waxay u keentay nin in adeerkeed ah oo magaciisa la yiraahdo Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal wuxuu ahaa nin oday ah oo masiixi ah oo haysta diintii Nabi Ciise calayhi salaam iyo kitaabkii Injiilka ahaa oo saxda ahaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu uga warramay say wax u dhaceen ayuu isla markiiba wuxuu fahmay in Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yahay nabigii la sugayay oo ku qornaa kitaabka Injiilka ahaa. kadibna nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri waxa kugu soo degay waa waxyi Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa ka yimid, waxaana kugu soo dejiyay Jibriil. wuxuuna u raaciyay haddii aan joogo oo aan ku soo gaaro marka qoomkaagu ay ku saari doonaan oo ay ku dhibaatayn doonaan, waan ku garab istaagi doonaa oo waan ku gargaari doonaa. nabigu isagoo yaaban ayuu wuxuu yiri oo qoomkaygu miyay i dhibayaan oo miyay i saari doonaan? markaasuu Waraqa ibn Nawfal wuxuu ku yiri haa, way ku dhibi doonaan oo way ku saari doonaan. qof lama yimaado waxa aad la timid iyo diinta cusub oo aad la imaan doontid ilaa qoomkiisu way dhibaateeyaan oo way cayriyaan. dhowr maalmood ayaa kasoo wareegtay dhacdadii ugu horeysay ee waxyigii kusoo degay nabiga calayhi salaatu wasalaam. maalin maalmaha ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo maraya tog ka mid ah togaga Maka ayaa waxa uu maqlay cod ama qof u yeeraya magaciisa ugu yeerayo yaa Muhammad. markaasuu cirka fiiriyay, markaasuu wuxuu arkay malaku Jibriil oo kursi ku fadhiya cirka iyo dhulka dhexdooda. markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu naxay oo argagaxay ayuu soo noqday. markaasuu wuxuu u yimid Khadiija ayuu mar labaad wuxuu ku yiri Khadiijoy idad. markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam Allah wuxuu ku soo dejiyay aayadaha ugu horeysa suuratul Mudaththir isagoo ku amraya in uu diintan uu dadka gaarsiiyo. nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkii ugu horeeyay oo rumeeyay waxay ahayd xaaskiisii Khadiija bintu Khuwaylid radiyallahu anha. waxaa ku xigay saaxiibkiis Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. waxaa ku sii xigay in adeerkiis Ali ibn Abi Talib oo markaas da'diisu ay ahayd 10 sano. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu bilaabay si qarsoodi ah in uu diinta reer Maka u gaarsiiyo oo dadka ugu dhow oo macquulka ah oo qaraabada ah uu ugu faafiyo. waxaa kala qayb qaatay oo ku kaalmeeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu diinta faafiyo Abu Bakr Siddiq. gacantiisa waxaa ku soo muslimay Uthman ibn Affan, Talha ibn Abdullah, Zubayr ibn al-Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas iyo Abdurrahman ibn Auf. waxay ku cibaadaysan jireen oo waxyiga ay ku kala qaadan jireen iyo Quraanka si qarsoodi ah daartii Daarul Arqam ibn Abi Arqam. maalin maalmaha ka mid ah ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo Ali ibn Abi Talib oo meel Maka xoogaa ka baxsan ku cibaadaysanaya ayaa waxaa arkay adeerkood Abu Talib ayaa intuu u yimid wuxuu ku yiri waa maxay waxaan aad samaynaysaan? markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u soo bandhigay diinta islaamka iyo dacwada. Abu Talib waa uu ku gacan sayray uuna ka diiday. wuxuu ku yiri wiilashaydiiyow anigu diinta aabbahay iyo awoowayaashay ka laaban maayo oo ka noqon maayo, laakiinse maalinka aad go'aansataan waxaan inaad soo bandhigtaan oo dadka u soo bandhigtaan, aniga garab ayaad iga helaysaan oo qof idin dhibaatayn doona ma jirayo.